qofka naftiisa dila ma dadka naarta ku waarayo kamid yahay mase u ducayn karaa inuu alla u naxariisto una dambi dhaafo ilaahay ma weydiin karaa oo islaamnimo dad ku dhintay miya su-aasha koobaad nuxurkeedu intaa wey su-aasha jawaabteedu waxaa weeye qofku inuu isdilo waxyaabaha cadaabka dheer lagu muto wey nabigana inay ka soontay calayhi salaatu wassalaam inuu yiri qofkii isdila ama sun isku dila ama meel iska soo tuura ama bir iyo wax isku dhufta tusaalayow bay ahayde naarta jahannamo yuu sidii isku samaynayaa khaalidan mukhalladan fiiha abadan isagoo ku waaraya weligii bimacnaa mudan inuu ku waaro xadiidkaas macnihiisu inuu kabaa'irta waaweyn ka mid tahay ee naar lagu waaro lagu muto qofkana waxa ku xambaaray diin xumo ay tahay ama ay noqon karto ayuu tilmaamayaa laakiin macnaha xadiidku maaha qofka diinta waa ka baxay oo waa gaaloobay macnihiisuna maaha qof kastoo sidaas sameeya inuu naarta ku waarayo maaha macnihiisuna maaha inaan loo ducayn karin dembi dhaaf ilaahay loo weydiin karin inuu jannada galo ilaahay u dhaafo waa dhici kartaa waayo muslimnimadii ma buraysay iyo iimaankii dembi weyn buu galay isagoo muslima dembi weyn buu ku dhacay isagoo mu'mina qof kastoo iimaan iyo islaam ku dhintana dembi kastoo loo ciqaabo in loo duceeyana waa mudan yahay in laga dhaafana way dhici kartaa nabigana sal allahu alayhi wasalam saxaabi Tufayl ibn Amr la yiraahdaa u yimid kama fi saxiix Muslim wa ghayrihi wuxuu uga sheekeeyay riyo uu ku arkay nin gacmaha iskooyay kadibna dhiig baxay kadibna sidii u dhintay saxaabigaas wuxuu sheegay inuu ku riyooday ninkii oo jannada ku jira oo la yiri gacmihiina ay duuban yihiin kaasa waxaa la yiri riyadii waxaa lagu weydiiyey buu yiri maxaa kugu dhacay gacmaha duuban wuxuu yiri intii kale waa i dhaafay laakiin waxaad adigu iska goysay ku samayn maynaa la yiri nabiga calayhi salaam haddaba hadlay wuxuu yiri allaahumma waliyadayhi faafir ilaahu labada gacmoodna u dhaafo u cafi hadalka nabiga calayhi salaam wuxuu iqraaraya sugaal u yahay in marka koobaad qofka ilaahay dambi dhaaf loo weydiin karo oo muslimnimo ku dhintay waayo ilaahay bari maa kaana linnabiyi waaladiina aamanuu an yastaghfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurba dadka gaalnimada ku dhintay ilaahu dambi dhaaf in la dhaha lama ogola nabi ibraahimna aabihii dambi dhaaf markuu u weydiiyey intuusan ogeyn bay ogaanin bay ahayd inaan gaal loo dhaafaynin wamaa kaana istigfaaru ibraahiima liabihi ilaa can mawcidatin wacadaha iyaah فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه صدرت النبي عليه الصلاة والسلام وكيه يدي إلهي ندم دافع ويدي مركو ويدي استلو ديدي إنه زيارتنا الله قراضي قفك الشرك يا كفر كل انت دم دافع أن حريص إلهي لما ويديك هديب النبي يقول اللهم وليديه فاغفر إله الذي سكعمودنا ونعف حتى هذا قراتين المسلمين ما كل انت إنه دعين كارو إنه دم دافع إن السورة قلتها صدق حديث كاس وحكى جواب يا سؤال قف كاين سو ويديي وحنا فسراريا فاهين كبخنا كسمينا يا يقيحيا حديث كي خالد مخلدا فيها ابدا انا من مديه هنا هي اين لا ولا لو عقاب يوسن هينو ujeedada ugu badan dambiga weyn kiisa lagu tilmaamay dadkana looga digay